munaasabadan oo ahayd mid xadhiga lagaga jaraayay wadda 4 kiiloomitir oo ay dhiseen dhalinyaro iskood isku xilqaamay oo reer xariirada ayaa waxaa ka soo qayb galay xafladii xadhiga lagaga jaraayay waddadaasi cusub gudoomiyaha gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur duqa degmada Saylac Sacad Daahir gudoomiye ku-xigeenka degmada Saylac Maxamuud Cigaal Ruqee qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Saylac injineer ka socda dawladda hoose ee degmada Saylac waxaana ugu horeynba madashaasi ka hadlay maamulka degmada Xariirad iyo hogaaminta sare ee dhalinyarada hawshaasi fulinaysay iyo soo kale qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac waxaana kamid ah hadaladoodii kullay aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay sababtoo ah mas'uuliyiinta gobolka ayaa la jooga kullay dariiqo sidoo walaalkeen ba general consulting soo taabtay dariiqo bil iyo 10 cisho socda waxaana ku bilownay dhalinyarta xarad baan isxil qaatay dhammaan taas oo maartaan ay la kaashadeen dadkooda degan maartaan magaalada xarad iyo maartaan dawladda oo maanta maartaan iyadoo ka soo qayb gashay wadadana waxay socotaa muddo maartaan bil iyo maartaan 10 cisho ayaan gacanta ku haynaa iyo maartaan hawsheeda socotay waana taa ma sha Allah meel fiican bay maraysaa inta waa gabagabo waxa hadhay maartaan inta kiiloomitir ay tahay waa ilaa maartaan 4 kiiloomitir wadadu aad baynu mahadsanyihiin dhalinyartaas annaga ka maamul ahaan ka degmada ahaan wixii wax qabad ee kale loo baahan yahay kaabadaha wixii garaba wixii gaashaan waan la garab joognaa dhalinyartaasina aad u dadaasho weyn salaamay yihiin annaga ka degmada ahaan wixii aan u taalo hayna waan ku caawinaynaa kalmaan hakranayno magaaladana meel walba oo ay ka jirto waa in dhalinyartu annaga lafteeda wax nala qabataa wax ma qaban karnaa ma hadda labaad waxa iska la duqa degmada Saylac oo 20 lowr oo dhagax ku daray imikana la noo sheegay inuu bisha dambana insha Allah gacan kale ka geysan doono ma hadda saddexaad waxa iska la duqa degmada Xarrad oo isaguna inoo sheegay inuu 30 lowr ku dari doono wadadan oo ballanqaadkeedii aan ka hayno maanta waxa inala jooga gudoomiyihii gobolka oo halkii ugu sareysay kulli isaguna gacantiisii oo muddo soo riixdamaysa وينو سيدا إن شاء الله وأنا كأقبلنا وأنا وجمع هاد عيني دون إن شاء الله. فكرتي طريقي اللي يقاني سيدوها إن سيدا ما أنت عن جوجنا أي كرديان اسكو أبا ولا كود دالان أدوكم هاد علين والله سنتي مالين هاي جزاك الله خير جيب كوجي قاعد وحاك الله ماشي يا لا أن كدر يا دولته هو حريرة قيبت وين إن كقاعدة طيارة هل كان حوجا يا إيو بدومي كحجين كوبا كابضي كقدر واقعين kaabadaha koor in gudoomiyaha degmada Xarrad wuxuu ku dhawaaqay 30 lood buu ku dhawaaqay arrimo khayri ah ka shaqeynayna ilaahay isku keenay waa mahad leh inta ka bacdi dhalinyarta waana loo mahad celiyay waana u mahad celinayna insha Allah waxa tiinu bixi dalka si faala fiican waad ku socotiin iminka Allah idin barakeeyo hawshaas ku sii wadan ilaahay kulay idinka waa inta gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada maayarka Xariirad xogayaha dawladda ballanqaad baa jiray ay qolada degmada Xarrad ballanqaaday taa kaabadaha dhalinyarta iyo degmada iyo inta kale way la qaban joogtaa ugu dambeynna waxaa madashaasi soo gunaanaday maamulka dawladda hoose ee degmada Saylac iyo bada saabka gobolka Salal kuwaasi oo gudoonsiyay dhalinyarada hawshaasi wadooyinka gacanta ku haysay ay ka qayb qaadanayaan dhismaha wadooyinka Xariirad iyagoona intaas raaciyay in qorshaha masar bilaanka ee degmada Xariirad ay sida ugu dhaqsaha badan u fili doonaan waxaana maamulka dawladda hoose ee degmada Saylac iyo bada saabka gobolka Salal oo amuurtaasi ka hadlaya kamid ah hadaladoodii alxamdulillah ilaahay ayaa mahad halkaas ugu keenay intii madaxa gobol haday tahay degmo iyo dhalinyar iyo waalid iyo caruurba ilaahay ayaa mahad la isku keenay halkan waxa weey intii waxaan wada soconaa si gaar ahaan inkastoo Xariirad deganahay hadana degmahan Saylac markaan ka imanay wixii aan ballan qaadnay waxaan u maleynayaa inuu fulay ama han maanta ugu dambayso oo dhigayno degmadii Xariiradna horta iyada inta aan ku yar dhaliilaya waxaan leeyahay dadkan iyada maanta hor kici lahayd iyada la daba socon lahaa oo dhalinyarta adeegsan lahayd laakiin maanta wixii ay ballan qaadeen kulli inaan laga hayn baan u maleynayaa Xariirad ee hawshan jidkan hawlaha ee 4 kiiloomitir ah in ogaa anigu sidoo ahaa iyo maanta sidoo yahay inta aad iyo aad baan idinku mahadnaqay qabadkiina iyo dadaalkiina had hawshan wadaan awal waxa dhici jirtay in dhalinyaradu wax kale u mashquulsho hawlo kala gasho buuqyo kala jiraan laakiin aan leenahay halkaana ka sii wada jidadka kalena halkaa ka kalmar dhamaysaana kuwa kale ee magaaladana hala ka sii wada anagu markii hore degmahan kan wada hadalay aad baa la soo hadlay bash master balaanka dhowr jeer hore ka hadalay macbara saabka
waxaan maanta keennay anagu degmo ahaan injineerkii waan keennay degmada saylac si uu magaaladan ugu sameeyo master plan waa hawl badan injineer degmo u sameeyo master plan hawl badan buu qaban waa hawl badan weeyaan hawshaan annaga dusha ku qaadanay waan idin keennay kulley labada cishaan joogno ama saddex cishaan joogno wuu ku dhammayn doonaa injineerku hawshaan ku dhammayn master planka kadib waxaan u gudbin doonaa gudoomiyaha gobolka wuxuu gudbin doonaa hawlaha guud geliyey waxqabadka quruxda badan leh ee aynu arkay kiiloomitir de waa la garan karaa oo xogaa ka dhiman yahay dhaqaalaha ku bixi kara xoogga ku bixi kara tacabka ku dhici kara ku yimid fikir dhalinyarada ay leedahay degmada xareed xitaa fikirka midna maamulka dabada ka wada midna shacabka dabada ka wada waxaa maanta nagaga dheerayseen ilaa idinku dabada naga wadaan maadaama aan gudoomiyey gobolka waxaan dhalinyarada u bixinayaa hormood number 1 gobolka Sale وانا نسيبكي انك توقع قادنيا لكن وانك idinka qaatay kulli waan joognaa ilaa iyo baritoole dhalinyarada aftarkooda dhiirigelinta media marka laga tagaa kan taagana mid kale oo taliyo tusaalaha tan canaanaysan diyaar baan idin oo way maqlay waxaan halkaan anigu horta ka gudoomiye hanka shakhsi ahaan xafiisku hay dambeeyay laakiin markaan arkay horumarkiina toban lowr baan hadda ku daray aan hadda wareejinayo si xafiisku noo idin dambeeyay waxaan idin ka soo helay laakiin taas waa jeebkay okay marka aad iyo aad baa mahadsantiin markaas wada qabsanaynaa xagaastan wada jeesanaynaa injineerka idin la joogay sigadna waynu mahadnaqaynaa muddo dhabar adeegay cabdimajiid ibraahim muumin telefishanka caalamiga ee Real TV magaalada xariirada ee gobolka Salel shirkadda dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amaba goobahooda shaqo ay eheladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeega e-dahab BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama accountkiisa Daarasalaam Bank haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga payc